daawadayaal kusoo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed dhammaantiin Ramadaan Kariim. barnaamijkeennii taxanaha ahaa ayaa halkan ka socda. maanta halkan waxaanu ku daba qabanaynaa khudbaddii maanta Muuse Bixi iyo Inaga Fadhi ay ka wadeen live streamka ee lala hadlayay ambassadorka EU-da Soomaaliya u fadhiya Nicholas. khudbadaas oo 2 saacadood qaadatay in xitaa internetka kaliya la soo galo oo halka fadhidaan sugaynay oo la isku xiri kari waayay oo Gaafadhi hogaaminayay. khudbadaasi waxay soo xusuusisay filimkii la oran jiray The Addams Family reer Bow yaa ku leh 1938kii Mareykanka laga medelay reerkii wada deganaa. reerkaas oo ahaa 6 qof oo isdhex fadhiya. waa Gomez, waa Mortical Addams, waa gabadhoodii la oran jiray Arbaca iyo Bugley iyo adeerkood dikii la oran jiray Uncle Fester iyo ayeeyo iyo reerkaas oo haysan jiray sida bisadaha binaadamka ku rabaystaan iyo eeyda octopus baakan 8 lugood leh ay reer xamar ku yaqaanaan faramugo ee badda ku jira 8 afba uu ka daloolaa oo markuu xawayaanka kale ama kalluunka uu ku dhago ayuu ku mudaa oo ka soo nuugaa. waaba arrin is haysata, waaba heegadii oo shir noo qabatay. shirkaas oo aan waxba loo soo diyaar garaynin. marka dib ugu eegto shirarkii hore waa ila daawan doontaan marka uu hadlayo ninka wasiirka ah ee la yiraahdo Gaafadhi oo warwarsan oo ka warwarsan waxa uu oran doono waxa uu language barrier af yaraan Ingiriisi baa jirtay turjumaan baa la soo kaxaystaa ama sidii kuwa koonfurta ninkii maalintii dhawaato uu hogaaminayay inaan dhalinyaro aqoonta halkan ka carartay waqooyiga ayaa la soo fadhiisiyaa meesha oo isku xidha si uu barnaamijku u diyaarsanaado. khudbad qaadiro oo la qaadireysay yahay oo la isla soo wada galay ayay ahayd. waxa uu ka bilaabay ninka la yiraahdo Gaafadhi khudbadda sida idin muuqata. halkan waxaan maanta ku wadnaa bandhig garamayo waxa la soo bandhigay ma heesaha hirgalay baa waxa la isu bandhigay meesha ka socday. bandhigaas oo ku saabsan arinta Yurub dhayga maalinta Yurubiyaanka oo aniga oo ah wasiirka balaaninka ee Jamhuuriyadda Republika Hegland iyo Nikolai aan halkan iskala daadihinayno. halka ilaahu ceebastur ay islaamuhu yiraahdaan ceebtaada waa la qarsadaa. inaanu ku maqallo ayaanu halkan u joognaa. nadaadihi take us through this. nadaadihi ayaa uu yiri farhunguriga waxaad arkaysay in aan waxba meesha isku habaysnayn. sidii maalintii hore loo wada hadlayay waxa laga wada hadlayay shirkankii ka horeeyay ee maalintan ku saabsanayd ee federaalku fadhiyeen arrimaha caalamiga IMF aafada lama soo hadal qaadin. ummadda iyadu way baahantay xitaa lama soo hadal qaadin. waxaanu halkan u soo fadhiisanay ayuu yiri Gaafadhi in aan wali dawarsigii aan noo wadaan oo aan laga joojinin sadaqadii nala siin jiray. islaantii waxay tiri baahaynama haysee baryada ayaanu u dhalanay. halkaa aan ku dhaafo arinta ninka Gaafadhi ana isla daawano. Ambassador Nicholas Berlanga Martinez and me, the Minister of Planning and National Development of the Republic of Somaliland. Today, we are sharing with presentation from the Ambassador on the occasion of Europe Day 2020 regarding the assistance the European Union provides Somaliland as of 2020 onwards. So we are here to hear from the Ambassador Nicholas Berlanga to take us through this program. I welcome Ambassador to this event. Welcome, Ambassador. aynu gallo imikana oo isla eegno bal wixii uu ka yiri arinta Ambassador Nikolai. uu arkay inay nimanku cadilan yihiin. wuxuu yiri waxaan ka xumahay aan idin sheegayaa waa inaanu barano inaynu internetka ka wada xidhiidhno. waa qof u soo adeegsada idii daadihiya ayay macnaheedu ahayd. dadku waxay ka sugayaan Muuse Bixi ayaa lala hadlayaa inaad shaqo u abuurto. waxa laga sugayaa qalbi wanaag. caalamka ayaa lagu kor wareegay oo caalamku sidoo uu nool yahay ayaa loo sheegay. laakiin ninka la hadlayay ee habka diblomaasiyiintu ay wada hadlaan ayaa loo hadlayay. hawl inaad qabato oo doorashadii aynu isku ogeyn ee jacburka ahayd aan wali laga sugayo aanan ku ilaawin aafadan dhacday. adduunyadu way ka soo gudubtay waqtigii isbaarada la isu dhigan jiray.
Soomaaliya iyo Somaliland inay wada hadlaan waa heegalaan waxa uu ka hadlaya ambassadorku inay wada hadlaan isagoo duur xulaya waa lagama maarmaan waayo dagaal aad gasho oo aad xitaa ku guulaysato oo dhaawac fudud ka soo gaaro waxa ku dhaantaa inaad ninka inta geedka hoostiisa isugu timaadaan aad gartaada naqsato haddaad garanayso sida loo garnaqsado Yurubeek badan waxay khudbad malcaamad Quraan ah oo kindergarten ku jira carruurtu markay malcaamada bilaabaan waxa looga bilaabaa waa kori doontaan waa weynaan doontaan maalmaha kamida iskuul baa tegi doontaan arrintaas ayaa meesha iiga dhex muuqatay dadka Yurub say isu dhex maraan eega oo daawada sida u nool yihiin eega noloshoodu halkay gaadhay eega ninkii garnaqsanaya geed ka yimaado halka wixiisa ha ka guntado hana kala dhaqaaqo waanu idi garab taaganahay waayo hadaan carruurta deedan dhabarka u salaaxin way kugu ooyayaan ama hadhow waalidkood ka ashkateeyaan waanu idi garab taaganahay wax allaale iyo wax ku saabsan aafadaha lacag la'aanta biil la'aanta ummadan haysata lagama hadal waayo isaguba kama hadlayna in iyaga uun wax loo dhiibo ayaa ahayd oo kii hore ee wasiirka wahaa ayaa halkaa jiirsiiyey sida idin muuqata mar walba wuxuu ku soo celcelinayay ninka ambassadorka ahi kuwan iyagu republic bay lahaayeen isagu wuxuu lahaa Somaliland waa maamul goboleedka heegada way wax la isugu duur xulayay afka diblomaasiga laakiin lama soconin adduunyadu waxay ku kala baxdaa inay wada hadasho adduunyada waad soo aragtay inkasta aadan Yurub tagin ayuu ku yiri aad joogtay meel u dhow waa Russia sanadkii la joogay halka lagu barnaamijyada diyaaradaha looga bedelo boolasha ama saliida waad soo aragtay sidii adduunyadu u kala xidhnaan jirtay iyo wixii dhibaato ka soo taagnayd waxaan aad kaaga rajaynayaa inaad ifahantay halka aan ka hadlayo. Thank you to make you adapt to this new normality, to this new situation in which we have to meet via internet, but we have to optimize and do the best for us, for Somaliland, for Europe, and also we have to recognize that this allows us to be closer to our people because there are people now connected with us this morning. But anyway, I would really like to start by. Nice to meet you all, everyone here. balimikana ila daawada Muuse Biixi khudbadiisii Uncle Fester filimkii weli mataleena oo aynu ku jirnaa The Adams Family reer Bow yaa kule Soomaalidu hore u tiri hadii aad been sheegayso been run u eeg ayaa la sheegaa waxay kaloo Soomaalidu hore u tiri lax waliba shilka ay isdhigto ayaa lagu qalaa ninka Muuse waxa ka muuqatay xasilooni darro cabsasho iyo diyaar garow la'aan qof ayaa sida ugu miiskay inta ay kamaradu haysay ee uu hadlayay ambassador Nikolai qof baa miiska ku kor wareegayay oo marba waxba laga qaadayay marka tuush Yurub ku jirta meesha laga qaadayay isaga mar gacan sida ugu riixayay oo siinayay waxa markaa idin muuqata inay iska ahayd khudbad qaadiro oo ana waa'ikan ah dadka meesha joogay ee la shaqaynayay umay diyaar garoobin waqtiga iyo hawshu inta ay ku dhacayso waxba diyaar meesha kuma ahayn khudbadda uu markaa ninka Muuse bilowday daba jalaabuteynayay tii hore ee uu gaafadhi akhriyay waxa ka muuqatay dad ay isaga isku aqli yihiin speech writerskii uu soo qoray inay dadkii isaga isku aqliga ahaayeen ee la soo doortay ee heegada ahaa ay ahaayeen waayo wax allaale iyo wax ku saabsan dadka dhibaatada isaga haysata meeshan uu dhex joogo ee heegada aafana haysata coronavirus-kii aafadiisii baan haysata xoolo la'aan baan haysata adduunkii baanu ka soo xidhanay lacagtii la saamaxayna laguma darin midina kuma jirin waayo waa aqligiisu waa calooshiisu way isku xidhayiin isaga uun wixii loo soo tuurayo kolley ma dhaafayaan khudbadaas oo ahayd khudbad aad u qiimo daran oo maran wuxuu ku bilaabay Yurub way midowday sheekadii marfishida ilaa hawada way Yurub way midowday xuduudihii Yurub oo dhan waa la kala qaaday sida marka ay la daawan doontaan marka uu ku hadlayo afkii farhunguriga أصحاب الكهف ويوروب قرما أي حدودها القاعدة يوروب قرما يكلموا دودي نيك سر لو شيء نيك شيء يا محيك اللي عليه الصلاة والسلام حديث الرسول كسوح حسوسته السائل أعلم من المسؤول بكل شيء برول نبي كوي بي كوحي ويدين إياه استجا يجا قوم بدن وحنو ويدين تذكروا ورهم يا الله هذا يا وحويان ويوروبيان يونيان كي وياهي وذادو يوروب حول قل عجاد أي كشرتاه currency operation waayo hore Soomaalidu tiri nin soo qaaday waa nin seef qaaday waxa meesha laga hadlayo oo dhami waxay xoogay annaga hal loo soo tuuro
وعلى أمريكا دقدقتي أيام نقول برابطي هيك لانك أنا جو هذا يا مجا ريبابليكا جيوي شناد فرانسيسكا ريبابليكا هيك ده مجا إذا أنا جو هذا يا أو دمان له هذا يا إيو ده لنا هذا يا ممبر ستيتسكا وتماذا يوروب كوبان تايوردان لنا هذا يا موادنين تا لبعتنكا مالتا يوروب waxaan idii sheegayaa fikradiisu keenista Yurub khudbadii Muusaan idii wadaa wixii aan ka fahmay shacabka Ingiriisiga meesha ka socday ma aha Nobel ma aha da taariikhiya oo wax taariikhiya oo Nobel oo isu yimi ma ahayn walsi barwaaqo sooran ayay wali lacagtii ayaa halka inooga sanqaraysa waxaan u maleynayaa inuu soo qoray ina Cabdi Bile waayo wax uu qoro waxaan bini aadani ma ahayn frustration baa ka muuqday ninka ambassadorka ah oo muu fahmin Nikolay waxaan isku hor iyo daba jacbursan dadkii aafada u hadli lahaa maalintii hore dad ummadaha kala soo diyaarsadeen meeye ee buuxin lahaa dadkii baahida ka hadli lahaa meeye dadkii lacag la'aanta iyo dhaqaale la'aanta ka hadli lahaa meeye dadkii biyo la'aanta waddanka haysataa ka hadli lahaa meeye khudbadii isagoo sii wataa oo halkaa ka yidhi Muuse Bixi waqtigan adag ee coronavirusku uu Yurub hayo isaga dadkiisa waxba ma hayaan waayo isagu waxa weeyaan wax walba yaqaan waa nacay coronaviruska ayuu waxaana la baroordiiqayaa European Unionka dhibaatada haysata waxaan halkan idiga soo gudbinayaa buu yidhi waxa caalimku markuu la hadlayo waa philosopher caalamka ma oga waxaan ku hadlayo inay iyagu ka og yihiin shimbirayo heesa ayuu moodayaa inuu hor fadhiyo 8 wasiir ay isku reerka ahaayeen ee loo akhriyi jiray kala buteyska kadar oo dibi dhalay noqoy Republika Heegalanku waxa uu la wadaagaa oo ay isku mid ka yihiin wadamada Yurub ama isu taga Yurub rule of law sharciga inuu sareeyo ayay wadaagaan sababtoo ah waaba idii muuqataa oo 8 wasiirna waa samaystay 12,000 oo shaqaalaha waan samaystay human rights ka xuquuqul insaanka ayaanu aad u ilaalinaa waxaanu ku dhex ilaalinaa jeelasha inay noo fadhiya dimuqraasiga Yurub leedahay oo kale ayaanu leenahay oo waa ogtiin waa nagii inqilaabnay good governance dawlad wanaag iyo maamul wanaag saddex habroodna dhul baan isku haysanaa wixii aanu isku reerka haynaa halka ay ka shaqeeyaan waa la socotaan long partner dawladda la yiraahdo European Unionku waxay noo tahay saaxiib fog aan waqti badan wada joognay dawlad xoog weyn baan nahay halka waxay naga soo baxday maanta inay noqdeen super power Heegalanku taawroominaan ogeyn waa ku mahadsan yihiin haday halka gaareen halka markuu la mareeyay waayo waxna ma diyaarsana waxaan lagu hadlayaa inaanay jirin isaga laftiisa og ayuu odaygu banjaray marka halka waxa kala booday ninkii odayga ahaa ee gaafadhi planninga inuu hayay ambassador war kale ma haysaa mise war uu qaylaad tagnaa ila daawada arrintan jalabuteyska On 9 May 1950, Schuman Declaration opened the way of what is now the European Union. All inside borders disappeared in Europe and built up bridges through trade, education, common currency, and settlement. Europe Day symbolizes the political and economic operation of Europe, which would make war between Europe's nations unthinkable. Today, where nobody is thinking about a war in Europe. On behalf of the government of the people of the Republic of Somalia, I would like to congratulate the European Union and the EU member states on the occasion of the celebration of the Europe Day in 2020. Happy Europe Day to all European Union citizens. The idea behind the European Union is not only a noble one, but a worthy example for the continents to follow, including our continent, Africa. In these unusual times, our hearts and thoughts are with the people of Europe and their governments and institutions as they fight against the coronavirus and take actions to mitigate the socio-economic impact of the virus and sustain
the economies and the jobs of the European citizens. Somalia shares similar values with the European Union, including democracy, rule of law, respect for the human rights. The European Union is a long-time partner and supporter of Somalia in both security sector and development. As a sovereign state, the Republic of Somalia, we should like to cement this long-term bilateral relationship based on common values and mutual respect, take it to the next level, where the citizens of Somaliland Republic and Europe can enjoy equally. We are thankful, especially Ambassador McGrath, his endeavor to support Somaliland in many fields. Thank you that you have came to Hargeisa many times, even sometimes to negotiate between our partners. Thank you all. dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantihiin Ramadaan Kariim.